Bismillahir Rahim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caawa idin hayna waxa ugu dooron wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo isku casilay fargelin uu sheegay in dawladda ay ku hayso arrimaha galmudug khilaaf xoogan oo ka taagan cidda soo xulaysa xildhibaanada galmudug ku matalaya mid kamid ah beelaha deegaanada maamulkaasi siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dawladda ku dhalilay inaysan al-shabaab ka difaaci karin hantida ganacsatada Soomaaliyeed wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka magaalada Baydhabo u gaar ka qaybgalka shir lagu wado inuu halkaasi ka furmo taliska booliiska gobolka Mudug oo digniin u diray shirkadaha iyo hay'adaha ka howlgala magaalada Gaalkacyo iyo Mareykanka oo qirtin dad shacab uu ku laayay dalka Afghanistan madgal ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba markale habeen wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 20ka bisha 9 Sebtembar sanada 2019 waxa caawa noo waramaysa Xabsa Khaliif Umar waa mahadsan tahay war soo saaraheena caawa Maxamed Cali Maxamed Bismillahir Rahmanir Rahim dhageystayaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada warka habeen idaacada kulmiye oo faahfaahsan Cabdikariin Khaliif Dalax oo ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goordhow waxa uu reediyo kulmiye u sheegay inuu iska casilay xilka wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre haddaba wasiirka ayaa sababta uu isku casilay waxa uu ku sheegay in uu ku qanci waayay waa sida uu sheegay fargelinta dawladda ay ku hayso dawlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan kan galmudug goordhow ayuu wasiirka arrimahaasi waxa uga waramay war soo saaraheena caawa Maxamed Cali Maxamed waa maasantahay idaacada kulmiye waa maasantahay walaal waa run weey arrintaas waa jirtaa waa iscasilay sababaha isku casilay waxaan ku soo qoray page-kayga waaya marka dhageystayaashu page-kaaga lama socdaan bal waxaad wax xaqiijisaa qaabka iscasilada ku maatay sababta ay ku timid waxa weeye waxaan dawladda ku kala aragti duwanahay sida wax u socdaan sida dawlad goboleedka loola macaamilayo waxaan galmudug qaabka hadda dibishisiintii hadda meeshii Soomaaliya dhibaatada ay soo bilaabatay way galmudug waxaa la yiri hal asbuucba waxaan u sameeynaa dadkii reer galmudug wixii dhaxmar lagu xalinayaa waliba tabashadu waa taagan tahay haddana cabsida aan qabnaa waxay tahay doorashadu inay noqoto dibishisiintii asbuuca ayadoo kale marka waxaan rabnaa in dadka reer galmudug ay arrimahaas si taxadar leh ay mataqaanaa uga fakaraan inay midnimadooda iyo wadajirkooda iyo wax mustaqbalka iyaga anfacaya inay meesha ka soo baxaan in laga shaqeeyo waxyaabaha aan isku casilay arrimahaas ayaa waxaan ku dhahdaa bays u ah waaya marka wasiir adiga inaan dadkayga u sheego sida wax yihiin iscasilada salku waxay ku haysaa arrimaha galmudug intaadan iscasilin madaxdii xilka ku dhiwaatay arrimahan ma kala hadash waa kala hadlay waana suurtagal weey inaad saxaraha u guulaysaa marka hadda xilkii wasiirnimo ay iska casishay maxaa ku qorshaysan waxa ay qorshaysan inaan ka shaqeyno Soomaalinimo iyo midnimo iyo wixii aan u arko in dalkan mataqaanaa kalsoonidiisa iyo sharafkiisa shacabka ka shaqeysan lagu soo celin karo waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulmiye uu xaqiijinay inuu iska casilay xilkii wasiir ku xigeen ee uu hayay xukuumadda federaalka Soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in al-shabaab ay joojiyeen dhismayaasha hoteelo ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kale dhismihii lagu waday garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in aysan haatan wax dhismaha ka socon Stadium Muqdisho sidoo kale hoteelka uu tilmaamay in laga joojiyo dhismihii amarka al-shabaab siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo qoray ku yiri waxaan xog ku haynaa in aysan wax shaqaha ka socon dhismihii ay al-shabaab joojiyeen kadib oo ka socday Stadium Muqdisho waxaan kaloo xog ku haynaa in al-shabaab ay hor istaageen dayactir lagu sameyn lahaa hotel ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya kuna eedeeyay in aysan difaaci karin hantida ganacsatada Soomaaliyeed haddii ay diidaan amarka al-shabaab wararka galmudug inuu guda jirnaa khilaaf xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay cidda soo xulaysa xildhibaanada galmudug kuwa uu ku matalaya mid kamid ah beelaha deegaanada maamulkaasi Maxamed Cali Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
muran salka ku haya cidda soo xulaysa xildhibaanada maamulka galmudug ku matalaya mid ka mid ah beelaha degta deegaanada maamulkaasi ayaa waqti xaadirkan wuxuu ka dhex taagan yahay xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb iyo guddi uu hogaaminayo Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo dhawaan shir ka dhacay magaalada xeebeedka Hobyo loogu doortay gudoomiyaha beeshaasi kulamo kala duwan oo khilaafkaasi xal loogu raadinayo ayaa laga soo sheegaya inay ka socdaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee maamulka galmudug xubnaha ka tirsan dawladda ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa iyagu waxay doonayaan sida warar ee shirkadii kulmiye ay sheegayaan in shaqada soo xulista xildhibaanada beeshaasi loo daayo isla markaasina loo madax banaaneeyo sida wararku tilmaamayaan halka guddigu uu hogaaminayo Cabdulqaadir Maxamed Shirwac dhankooda ay doonayaan in iyaga loo madax banaaneeyo soo xulista xildhibaanada galmudug ay ku leeyihiin beesha uu gudoomiye u yahay iyo guud ahaan masiirkeeda sidoo kale radio kulmiye ayaa ogaatay in goor hore la qorsheeyay in la magacaabo guddiga doorashada galmudug balse khilaafkan soo shacbaxay waqti dambe uu dib u dhigay halka xubnaha jooga Dhuusamareeb iyagu wali xal ay raadinayaan dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo xiray shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug iyadoo wali cabasho ay muujinayaan qaar ka mid ah beelaha galmudug waxaase khilaafkan haatan soo ifbaxay uu sii dheereenayaa in la guda galo wajiga labaad dhismaha galmudug khilaafkii iyo isjiidkii ugu badnaa waxa dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka soo wajahay ururka Ahlusunna oo muddo ka talinaya magaalada Dhuusamareeb iyo deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa magaalada Baydhabo waxa uu u gaaray ka qaybgalka shir lagu wado inuu magaalkaasi ka furmo Yoonis Duraan Cali ayaa warkan faafahinaya wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baasha Yuusuf Axmed kana mid yahay xeerlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay si ay uga qayb galaan shirka xeerlaaliyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka furmaya magaaladaasi mas'uuliyiintan waxaa garoonka Baydhabo ku soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale wafuudda maanta tagay Baydhabo waxaa ka mid ah xeerlaaliyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo maalinta biri ah shir uga furmi doono Baydhabo Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ka warbixiyay ujeedada Baydhabo u soo gaareen isagoona si rasmi ah u shaaciyay in biri shirka xeerlaaliyaasha dalka Baydhabo uu ka furmi doono taas taan ka baxo ujeedada aan u socono oo nimid waxa weeye sidaan horeyba u sheegnay waxa magaalada Baydhabo haddii ilaahay idmo maalinka biri ah ka furmi doona shirka xeerlaaliyaasha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ku sugan yihiin sanadlaha ah oo sanadkan ay nasiib u yeelatay in lagu qabto magaalada Baydhabo gobolka Baay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa inuu shirweynahaasina noo najaxo insha Allahna waa waraysan doonaa gadaalna waan ka wada xiriiri doonaa haddii Alla idmo dan waxaan ku soo dhaweynaynaa isna gudoomiyaha maxkamadda sare oo runtii ah gudoomiyihii maxkamadda sare dalka ummadda oo dhan oo shirkan inuu noo furo nagala qayb galo nagu sharfay maalinta biri ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in uu ka furmo shir ay iskugu imaan doonaan xeerlaaliyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya waa mahadsantahay Yoonis taliska booliska gobolka Mudug ayaa waxay degniin u direen shirkadaha iyo hay'adaha ka howlgala magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan Gaalkacyo nooga soo diray taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Galmudug gaashaanle sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ku amray hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo iyo shirkadaha ka shaqeeya inaysan shaqo siin karin qof aan soo marin laamaha ammaanka gobolka Mudug si uu yiri loola socdo xaaladda shaqo doonaha isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay taliyaha in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato sugitaanka amniga magaalada Gaalkacyo deegaanada hoos yimaada waxaan qaadanaynaa amarkaas iyo qodobadaas waxaan horgeyn doonaa cid allaale ciddii falka ku dhaqaaqday inaan sharciga horgeyno waxaan halkan anugu digniin gaar ah uga dirayaa hay'adaha shirkadaha dhammaan cid kasta oo shaqaale qoranaysa inay la xiriiraan ciidamada amniga si loo ogaado qofka ay qoranayaan waxa uu yahay asalkiisa ama uu ka shaqeynayo gaashaanle sare Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si uu yiri looga hortago cid kasta oo falal ammaan dariiqa ka wada magaalada Gaalkacyo deegaanada hoos yimaada
hadalka taliyaha ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay laamaha ammaanka gobolka mudug ay wadeen howlgallo xoogan oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka mudug. Liban Cajiib Xaajiraad oo kulmiye gaalkacyo.